السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان أقيارتو ku xiran channelka soo dhawaada cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay attraction maxaa la dhahaa sidee looga faa'iideystaa goormaysa dhacda dadka inta badan waxay isku qaldaan attraction iyo deflection waxaa la dhahaa marka aniga aan doonayo inaan square gaar ah ku geeyo squarekaas haddaad tagtana ay dhici doonto tactic ama aan kugu samayn doono tactic markaas ayaa waxaa la yiraahdaa attraction squarekaas ayaan ku geynayaa squarekaas markaad tagtana waxaa dhici doono advantage inaan ka qaato balse deflection wuxuu ahaa markay xubinta culays saaran tahay isla markaasna culayskaas mid ka mid ah aan ka faa'iideysto midkan haddii aan laba xubin ee daaficaysay aan mid haddaan qaato midka kale uu ka tagaya saas ayaa waxaa la yiraahdaa deflection okay haddaba positionkan bal fiiri inaad xaliso ka waran haddii fardeen halkan uu taagnaan lahaa isla markaasna boqorkan halkan uu taagnaan lahaa kuwintana waan ku dhaganahay maxaa la yiraahdaa markan haddaadan soo qaadanin fadlan isku day in cashirkii fog aad soo qaadatid markan waxaa la yiraahdaa fog laakiin nihow meeshaan boqorka ma taagna waxaan ku iri annaga ayaa keensanayna xoog ayaan ku keenaynaa sidee attraction aan ku sameynaynaa askariga haddaan ku dirjiyo waxaa qasaba fardahan inuu dilo sababta maxay tahay boqorka meel uu aadama lahan inta waxaa ka xiray fardaheenna so mar kale ayaan dilayaa waxaa qasab ku ah marka maanta boqorka inuu imaado haddaba waxaan sameynaynaa fog mujida marka hadda attraction ayaan sameeyay aniga ayaa keensaday squareka aan doonayo boqorka kaliya boqorka bis attraction laguma sameeyo xubin kalena waad ku samayn kartaa si aad u soo jiido ood meesha adiga aad doonaysa aad u keensato marka attraction ayaan ku sameeyey boqorkii waa soo jiiday squareka aniga aan doonaya ayaan keensaday dabadeedna waxaan ku sameeyey fog oo tactic ayaan ku sameeyey marka sidaas ay ku kala duwan yihiin attraction iyo deflection haddaba example-ka kale aan u gudubno okay example-kan kale bal fiiri waa gartay example-kan kale inaad aragtay ayaan filayaa rook sacrifice h7 okay haddaba maxaan ka faa'iidnay marka boqorkii squareka anaga aan doonayna waa keensanay waa soo jiidnay attraction aan ku sameynay laakiin faa'iidada maxay tahay checkmate inaad samaysid oo ah queen h5 checkmate bal dib u celiye fiiri haddaan dib u celiye bal eg marka hore boqorkan wuxuu iska yaalay h8 yaa ku qasbay inuu imaado h7 waxaan samaynay attraction waan soo jiidnay oo waxaan keennay meeshii uu ku dhiman lahaa ayaan u soo jiidnay oo markaan sacrifice sameeyey boqorka ikhtiyaar kale uma furno markaas ayaana waxaan ku samaynay checkmate haddeedii waxaan idin iri attraction keliya boqorka laguma sameeyo waxaad ku samayn kartaa xubin kale qish ayaan idin siinayaa isku day inaad positionkan xaliso waxaana attraction lagu samaynayaana hadda waa queentan isku dayda ma xalisay xagee la geenayaa queentan ma askarigan aan keennaa maxalkaasaan geenaynaa xageen u wadnaa queentan okay horta waxaad maskaxdaada ku sawirtaa sideedaba basal marka la xalinayo waa in mala awaal alla imaadaa aad maskaxda wax ka sawiri kartaa aad hal abuur la imaan kartaa haddaba waxaad maskaxdaada ka sawirtaa fardahan oo taagan f6 boqorka maxaa ku dhacayo check meel allaala meeshuu marka fardaha tago waxaa ka dhici doona fog haddii inta ay tahay meel allaala meeloo fardaha uu tago waxaa ka dhici doona fog so queenta haddii taalla marka h5 waxaa dhici doona fog marka bishopkan ayaan dili doonaa queenta waxaan ku samaynaynaa attraction sida caadiga inay disho ma ahayn sababtoo ah attraction lagu sameeyey oo queenta waxay ugu duwan tahay boqorka waa la qasbi karaa laakiin queenta akhtiyaar ayaa leeyahay inay disho qasab ku ah inay iskaga tagtay sababtoo ah xubintaas free ayay ahayd so attraction waxaan ku sameynay queenta inaad xaliseen ayaan filayaa waxaa markaan attraction lagu sameynayaa waa boqorkii sababtoo ah askarigan haddii la dilo boqorka ikhtiyaar kale uma furno oo ah in ama uu fardahan ka sabro ama qalcaddaas foog lagu qabtaa okay askarigan ayaan dilay waxaa qasaba boqorka inuu dilo dabadeed waxaan ku samayn doonaa foog waxaan qaadan doonaa qalcaddaas waa gartay positionka kale haddaba isku day waa attraction haddaba positionkan haddaa fiirisid waxaa laga yaabaa inaa isdhahdid askarigan wuxuu ku dhegan yahay qalcaddii iyo fardihii
balse haddii aad taqaanid attraction waxaad samayn kartaa in aad samaysid attraction yaa lagu samaynaya attraction waa boqorka yaa attraction samayn karo ma askarigaan dilaynaa ma fardahana ayaan dilaynaa xaggeen u wadnaa boqorkan isku day inaad xaliso waa gartay waxaan samaynaynaa queen sacrifice waxaan qasabaa inuu boqorka dilo dabadeed waxaan samaynaynaa dala check waxaa dhacayo inay isxaliyaan fardaha iyo qalcadda oo ah Arabian mate fadlan haddaadan soo daawanin casharkii ahaa checkmate patterns soo daawo sababtoo ah checkmate patterns ka markaa haysid waxay ka caawinaysaa in isla markaasba maskaxda aad ku sawirtid baatanadii mid ka mid ah oo inaad kuu muuqdo saas ayaadna waxaa ku samayn kartaa tacticada sababtoo ah tacticada keligeed haddaad taqaanid oo aadan garanaynin checkmate iyo noocyadiisa iyo sida loo sameeyo waxba kuma tarayso waa meesha ay ku dhamaato ciyaarta checkmate fadlan isku day example-ka kale inaad xaliso yaa attraction lagu sameynaya waxa attraction lagu sameynaya waa qalcadan oo sidee ayaa loogu sameynaya bishopkan ayaa la qaadi doonaa dabadeed qalcadan waxay noqonaysaa free oo waxaa la dhihi doonaa check qalcadaasna waxaan ku sameynay attraction